bisha Maarso ayaa kulmisay xanaaqa dad badan. Kuleelka ka jira Muqdisho ayaa magaalada waqti ahaan dadka xadida. Bulshada badi waxay bishan si weyn ay u isticmaalaan cabitaanka, barafka, raacidda gaadiidka. Culeysyada ugu badan ee waqtiga kuleelaha waa dabeecadda qofka oo isbedesha, sida uu qabo wadahan bajaajka, inkastoo muraxad uu bajaajku wadaha ka yahay uu ku xirtay. dadaan u sheekay kirna oo macna markaa meesha adinkoo labadiina isku booqsan kuleelka jiro adinkoo isku booqsan ina kala deegtaan la yaabaa dadna macnaha kuleelka ma tabeesiin oo macnaha waa sheekay wada hadal iyo waxyaabo fara badan socdo qofkii dabeecadiisa ay wanaagsan tahay qoftu waa sheekaysanaysa markaa sheekaystiin macnaha waxa waaye waa isfahmaysa kuleelka la tabeemayo muraxadna waa qofta oo shidaysa daamankan hadday ka furiyin والله كسمع ما هي مروحة كم بيرنا قفت من مروحة العقيد جوجان ولا صايب سنة مروحة مثل ساق الطهري كذا كويرنيسا ما كويرت هرنا هذا يقول سنة كذا لنا تكشاك وقبو جني مركز تكبيش مارس أنت لا يقول الرب إذا لقيت دونه ده ممكن هواي ده لسكفر واسكون استه goobaha lagu iibiyo cabitaanka waxa koox u taagan dad badan qof waliba waxa uu dalbanayaa nooca cabitaanka uu xiiseenayo waxaan dareennay waxyaabo badan meelihii hilibgeelkii hore laga cuni jiray oo waxyaabo hadda ma jiraan hadda waxa weeyaan biyo qabow agtaada inay yaalaan cabitaan waa inaad cabtaa waxa weeyaan tuumaad xanaaqaaga badnaan karo hadal badan ma kari kartid su'aalooyin badan ma geli kartid marka waxa weeyaan meelihii badan hilibgeelka laga cuni jiray hadda bil miisaal qofka hadda saacaan amal qof hilibgeel cuno iyo kuleelka isma keeni karaan marka waxay noqotay hadda meelaha cabitaanada waxay noqdeen ma sha Allah iyo biyo badan aad isticmaashid waa saas way haba hashey horta biilada naftarkooda dadyaabo badan qof walba dabcidiis isbedela xitaa kii biilka wadayay oo shalay toolo ku bariyay ka waxa weyn adaa barya ku raacaysid ama waa inaad sabartaa dulqaadkaaga inaad badataa waxa weeyaan aad qofka u noqonaya tuumaaj waa uma adkeysan karaha waa laba kelmadood qofkii sabar badan uma lahan hadda waxa leeyahay bisha ka soo socota aba ka sii daran marka insha Allah ilaahay waxaan ka rajeynaynaa insha Allah bil khayr qabo inuu ilaahay ka dhigo insha Allah ardada wax ka baratay iskuulaadka waa kuwa u nugul kuleelaha maadaama tiro arday hal fasal uu kulminayo haddaba xilligaas dabeecadda ardada waa sidee horta wallahi Mars iyo Abriil waa laba bilood oo maartay oo kuleelka badan sida ay tahay anaga ardada ahaan oo saameeya sababtoo ah marmar minaha iska fahmi kartaa qof walba gaar dad qaarkood ma awoodaan ardada ilaa xaafid lug bay aadayaan kuleelkii ardayga muu dulqaadan karo mar maartay waxa asiga inay break lagu soo siiyo intuu iska celiyo oo hadhow baawarta ka raaca waxa kale oo soo dheeraday marka la gaaro xilliga 5 saac iyo bar mise 6 saac oo kale fasalada kuleel noqonayaan ardaygii asam maartay waxay si adkaanaysaa inuu casharada si rabo uu qaato waayo waa dareemi kartaa kuleelka saameynta uu leeyahay bishan Maarso waxa wadooyinka Muqdisho saacadaha qoraxda ay kulushahay ay yihiin kuwa aan dhaqdhaqaaq badan uusan ka jirin goobaha ganacsiga sidoo kale kuma arkaysid dad badan oo sii galaya dadka ayaa badi isugu soo ururaya inay adeegtaan xilliyada habeenkii ama galabkii ama gelinka hore Sharmaake Maxamuud Xuseen Kalsan TV Muqdisho.